muqdisho maanta waxay u kala qaybsantahay 4 qaybood bay kala tahay oo meelba meesha kale ka xidhan tahay shacbiga dhibaato badan bay qabaan iskuuladii caruurtii ma tagayso meel waliba waa xidhan tahay qaraxyadii way socdaan maxay ahayd dadkii waayeelka ay xanuunsanayeen ma helayaan meel ay maraan anigu waxaan markhaati ka ahay 11 April waxaan u socday meesha ciidamada maalinta ciidamada indhahaygan saaray gabadh ku dhalaysa geed hooskiisa oo maro la saaray loo raadinayo oo ilmihii ka soo jeedo mas'uuliyadda ayaa leh waxaan maqlay waxa loo ballan qaaday dadka basas lagu qaado waxay ahayd qorshaha in la sii dejiyo inta la xidhxidhin meelahan waxa dadkan laga yeelayo inagu dadkaynu masalaan waan arkay odayaal socon la oo sida taayirka la riixayo waxaan arkay dad shacab ah oo gaarigii anigu la socday ku soo qamaamay oo la celiya dila area oo annaga dib noo qabsaday dhibaatadu ma yara mas'uuliyaddu inagayna saaran tahay xildhibaano gudoomiye anigu waxaan ku talinayaa bari waxa imanaya mas'uuliyiintii aynu yeedhay inkastoo aan garanay waxa asluubta loogu yeedhay asluubtu shaqo kuma la amni wixii la xidhay iyagoo ilaaliyaan mas'uuliyiinta haysa waa in si bareera loola hadlaa haddii aan ku qanci weynana waa in si kale loola xisaabtamaa dhibaatada enough is enough kama adkaysan karno askartii mashaakil baa haysta waa la socona bari dhawayta godoodkay sameynayeen inkastoo qaladaad kale ku dhex jireen haddana maanta gaari haddaa ka haysato waa wada ogtiino jid ma mari karno sida shinnaday kugu soo qamaamayaan iyagoo $1 iyo 2 ku weydiisanaya dhibaatadii meel walba way gaadhay mas'uuliyaddana baarlamaankanay saaran tahay kama aamusi karno waa in laga hadlaa waa in laga doodaa waa in lagala xisaabtamaa mas'uuliyiinta hawshaale aniga hadalkayga intaasaan kusoo kaynaya wixii kale damacsanaa horaa loo yidhi waa mahadsantahay